Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsanaanayaa lug hilib ari ah oo la uumateynayo. Marka ugu horeysa waxaan isku shiidi doonaa yaanyo mirooley, toon, kabsar caleen iyo basal baar. Intaas ayaan biyo yar ku daraynaa, kadibna waa shiideynaa. Shiidista kadib waxaan ku shubnay baaquli. Intaa kadib waxaan ku daray qaado maraq digaaga iyo qaado basbaas ah iyo qaado xawaash ah iyo qaado sacfaraan ah. Kadibna waa isku walaaqay. Intaa kadib waxaan ku daray qaado barkeed cusbo ah iyo 2 qaado oo saliid saytuun ah. Kadibna waan isku walaaqay. Intaa ayaan meel dhiganaynaa. Kadibna lugtii waxaan rabnaa inaan dilaacino si ay u yeelato meelo maraq uu galo. Saxankii ovenka baan diyaariyay oo kor saaray. Kadibna maraqi ayaan waxaan ka mariyay kor iyo hoos alaabtii aan soo diyaarshan kor iyo hoos ka mariyay. Intaa kadib bacda aluminum-ka ayaan ku laalaabay oo ku duubay dhammaanteed. Kadibna ovenkaan geliyay 2 saacadood. Intaas kadib waxaa soo baxaya hilib uumateysan oo aad u jilicsan oo aad u macaan. Intaa kadib waxaan doonayaa inaad ii saartaan like iyo share iyo wax walba. Salaama. Maca salaama.